بسم الله الرحمن الرحيم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكمة منزله وهو أصدق القائلين: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الله سبحانه وتعالى أو kitaabkiisa منزلka oo محكمkan ugu cadeeyey dadka baariyaalka ah ee daacadiisa ku dadaala inay nicmada iyo raaxada alla dhexdeeda ku sugnaanayaan. dadka fujaarta oo aan diinta lahayn naarta jaxiimo la yiraahdo inay feenan doonto ayuu alla noo sheegay subxaanahu wa tacaala. nicmada aakhiradu waxay maqsuur ku tahay oo ku gaaban tahay oo yeelanaya waa dadka mudiciinta ee rabbigooda adeecay subxaanahu wa tacaala. nicmadaas ayadana waxaa helaya dadka ka nicmaystay xagga qalbiga oo iimaan iyo cabsi alla ku nicmaystay. nicmada aakhiradu waxay gaar ku tahay dadka iimaanka iskale. daarta barsaqa iyo daarul qaraar waxaa raaxa helaya waa dadka rabbi ka baqay subxaanahu wa tacaala. 3 daarood ayaa jirta: daarta adduunyada, daarta barsaqa iyo midda daarul qaraar la yidhaah. daarta adduunyada mu'min iyo munaafiqba waxbay ka wada cunaan, laakiin daarta barsaqa oo qabriga ah iyo midda la yidhaah daarul qaraar oo ugu dambayso dadku janno iyo naar mid kale tegayaan, dadka rabbigood ka cabsaday bis ayaa ku raaxaysta. haddaba walaalayaal, dad rabbigood ka cabsada ee jannada alle rabbi ka rijeeya oo daacada alle u dadaala aan noqono oo diinta islaamku siday tahay ugu dhaqma. wax walba oo dulli ah waxaa u sabab ah macsiyada iyo dembiga. caasinta alle haddaan iska ilaalino oon diinta u shaqayno, ilaah wuuna ilaalinayaa, dulligana wuu naga dhowrayaa in badan. haddaba walaalayaal, qofka rabbigii caasiya qabriga ayaa lagu cadaabaa, murug iyo tiiraanyo ayaa lagu sallidaa, xabadka ayaa laga ciriiriyaa, rabbigii ayaa ka jeestaa, daarta aakhiradana waa lagu silciyaa. ilaahay kayrkii mid ku xirma ayaa laga dhigaa, xagga rabbi ayuu ka go'aa, waadi kasta oo lagu halaagsamana wuu ku dhacaa. ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuuna ilaaliyo nagana bixiyo dhibaatooyinkaas oo idilba. haddaba walaalayaal, waxaan jeclahay inaan hadal yar oo kooban oon aada u badnayn oo aan dardaarana halka kan ka yidhaahdo, kaas oon u soo jeedinayo walaalahayga aan aada u jecelahay alla dartii, oo ah ragga iyo dumarka wada noolaan doona ama hadda ka hor wada noolba. run ahaan si gaara waxaan warka kan ugu soo jeedinayaa dad aan kalsooni gaara aada ugu qabo. waxaadna moodaa inay noqon doonto masalada tan oo mid anigana i khusayda, walaalahayga kalena khusayda oo ay ka faa'iidaystaan. waxaan idinka rajaynayaa walaalahaygow inaad ka faa'iidaysataan, markaad dhegaysataanna aada rabbi nooga barisaan inuu naga ilaaliyo dulli adduunyo iyo cadaab aakhira intaba. haddaba walaalayaal, halmaanka diinta la halmaamo oo rabbi dikrigiisa laga tago iska ilaaliya. qofka rabbigii halmaama waxaa ku dhalata cabsi iyo argagax xagga qalbiga ku timaada. dhibaato weyn ayuu alla ku sallidaa. macsiyadu waa shay aada u xun, quluubta ayaa ku jirata. macsiyada cuquubada ka dhalata waxaa ka mid ah in qalbiga qofka uu jirrado, toosnaantu inay ka baaba'do, diinta inuu ka inxiraafo, inuusan ka suulin marnaba inuu jiran yahay. haddaba dunuubta quluubta ayay aada u ta'siirisaa sida xanuunkuba jirka u ta'siiriyo. dunuubtu qalbiga jirooyin badan ayay ku keentaa. jirooyinkaas waxa looga caafimaadana ma lahan ilaa in laga tago dunuubta mooyaane. dadka xagga rabbigood u soconaya waxay ku dadaalaan inay quluubtooda ka dhigaan quluub caafimaad qabta oo daacada alle ku dadaasha. lianna rabbi wuxuu qur-aankiisa ku yidhi: yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalinta qiyaamada waa maalin
aan xoolo iyo weel waxba tarayn qalbi caafimaad qaba oo nadiif ah axadka rabbiga ula yimaado mooyaane subxaanahu watacaala. haddaba qulubtiina hagaajiya, carabkiina xumaanta ka dhowra, daacada alle u degdega, xilmihiina diinta ugu shaqeeya, xaqa dad isu garabsada walaalayaal ahaada, dad isu dardaarma noqda, dad dulliga isaga diga noqda, daacada alle dad isu toosiya noqda, dhib iyo dheef iyo dhibaataba dad isugu dulqaato isku jecel noqda, hadal xun oo la kaado dad iska ilaaliya noqda, qof walba qofka kale kuwa uu ixtiraamo ahaada, walaalo iyo waalid iyo muslimiin wanaajiya, saacad walba qabri u diyaar garooba, salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam afkiina ha ka qaadinina, sunnada nabiga waxaan ahayn dhaqan iyo cibaado aad alle ugu dhowaataan ha ka dhiganina, qur-aanka akhriskiisa carabka ha ka qaadinina, xifdigiisa ku dadaala, axkaamtiisa ilaaliya, si dhaba ugu dukada kitaabka rabbi adinkoo ku tadabburaya, waajibka ilaaliyo sunnooyinka raaciya, awlaad barakaysan oo alla raalli garaysta rabbigiin weydiista, wixii dhibaato idinku yimaada alla weyne u sheegta, waxaad khayr heshaan alla weyne uga shukriya, qabri ayaa idin sugayo qurux darro loogu dhintee qur-aanka ilaaliya, aayaadka rabbi ha la yicinina oo walaalayaal dulliga dad iska dhowra aan ahaano. sidaas ayaana laka doonayaa. waxaa la garanayaa daartatan adduunka in laga tegayo oo daar aakhira loo socdo. axadkii shay jeclaada oo ilaahay kayrki ah oo ku jeclaada baadil iyo waxaan jirin waa lagu cadaabayaa. waxaa qofka muslimkaa laga rabaa wax uu jeclaanayo inuu alla darti u jeclaado, waxa uu gooynayo inuu alla darti u gooyo. haddaba walaalayaal, dadka boqorada ah iyo ilmahooda hadday ogaan lahaayeen dadka mu'miniinta waxa ay ku raaxaysanayaan oo iimaan iyo cibaado alla ah, maalin horay layn lahaayeen, laakiin ma oga. adduunka waxaa ku yaalla janno, jannada adduunka qofkaan gelinna jannada aakhirada ma galo. jannada adduunku waa cabsida alle, waa ku socoshada diinta, waa ilaalinta xaqa, waa ka tegidda xumaanta, waa daryadaynta muslimiinta, waa naf iyo maal in diinta lagu bixiyo oo aan marnaba ducada rabbi laga cajisin. sidaas ayaa la yidhaahdaa. haddaba walaalayaal, dad sidaa u dadaala aan noqono oo rabbi aan ka baqano subxaanahu watacaala. walaalayaal, waxaa yaa badan axadka la yacay naftiisa oo cadaab u shaqeeyey, adduun oo raqiisa aada u dabagalay, aakhiro oo qaaliyana iska iloobay. axadkaasu aad ayuu u yaa badan yahay. waxaase ka yaa badan axadka janno looga sheekeeyey oo aan dalabkeeda ku dadaalin, axadka naar looga sheekeeyey oo aan si dhaba uga cararin. rabbi qofka caasiyey ihaano ayaa ku dhacda. wuxuuna allah odhanayaa subxaanahu watacaala, waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim, ina allaha yafcalu maa yashaa. axadkii rabbi ahaaneeyo, wax karaameeyo oo ilaaliya uma sugna. rabbina wax alla waxuu doono alla samaynayo weeye. haddaba walaalayaal, ihaanada rabbi aan iska ilaalinno oon aayaadka alla ilaalinno. haddaba walaalayaal, wax ilaahay nagu dulleeyo oo darakaad naareedna la kugu dejiyo aan iska ilaalinno oo aan daliilka ku dhaqanno. walaalayaal, haddaanan diinta isu dardaarmayn, haddaanan daacada kaalmo isugu noqonayn, haddaanan dhibkana soo gaara isugu dul qaadanayn, walaalayaal waan isku dambaabaynaa ee aanu kala tagno. haddaan axadba axadka kale waajibaadka u kicinayn, xaaraan in la cuno inaan qabno haddaanan ka dooranayn, naftayna waxay u dhimanayso haddaanan walaalo islaam u hormarinayn, axadkana dulmiya in la cafiya haddaanan jeclayn, kiina gooyana aanan xariirinayn, walaalayaal wax isku tari maynay aanu kala soconno. alla ka cabso qofka noo soo jeediya haddaanan dadka ka jeclaanayn, xumaan markii nala ku arko qofka nooga naseexeeya haddaanan ducadiisa carabka ku badinayn, waalid iyo walaalo inaan wanaajinno haddaanan diyaar u ahayn, aqalka aan ku sugannahay muslim iyo ehel inuu ka dhaxeeya haddaanan doonayn,
walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabaynin oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala. walaalayaal haddaanan saacad walba qabri ka fakarayn, xanta carabkeenna aanan ka dhowrayn iyo beensheega, namiimada iyo hadallada xun haddaanan iska ilaalinayn, firaashka aan ku jiifanno sirteenna haddaanan ku qarinayn, owlaadda aanu dhalno haddaanan diin ku barbaarinayn, wax alla wixii alla raalli ka yahay keliya dad ka shaqeeya haddaanan noqonayn, qaladka aan galnana aanan toobakeenkiisa u degdegayn, walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabinin oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala. dad ilaah ma silciyo haddaysan diinta silcin, dad ilaahay saqara ma seexiyo haddaysan safka nabiga khilaafin, dad ilaahay sahay ugama dhigo sid xun oo saqaro laga keenay haddaysan layicin naftooda inay xumaanta ka dahiraan. ee walaalayaal nafteenna aan dahirno, dullina aan ka dhowrno, sidaa haddaana yeelayn walaalayaal aanu kala soconno yaanan isku dambaabinin. walaalayaal alla qaadira haddaanan ka baqanayn, qur-aanka alle akhris iyo dhaqan haddaanan ka dhiganayn, qiyaamo iyo qabri iyo wixii ka dambeeya haddaanan u diyaar garoobayn, alla qaadira oo naga awood badan inaan ishortaagayna haddaanan garanayn, aanu kala soconno walaalayaal yaanan isku dambaabinin oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala. walaalayaal macsiyadu waa shay aad u dhibaato badan, wuxuuna ilaah qur-aankiisa ku yidhi dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo warramay nicmo ou axad addoommadiisa kamida ugu nicmeeyey inuusan alla ka qaadanayn ilaa addoonku asagu noqdo qof dulaysan oo diinta ku cayaara, qofka daacada alle macsiyo ku beddesha, shukriga alla lagu shukriyo kufri ku beddesha, waxa alla lagu raalli gareeyo waxa alla carageliyo ku beddesha. qofka sidaa yeela ayaa ilaah nicmadou u galay xumaan ugu beddelaa oo ay tahay jazaa'an wifaaqa, amal mar waafaqsan wuxuu la yimid. wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid, alla addoommada dulmiya ma ahan. walaalayaal aan dadaalno, dulli aan iska ilaalinno, diin alla dhaqankeed aan u taagnaano, sida tanu nooma habboonee xagga aan u soo laabanno. macsiyada shayga la yidhaah waa shay xun, dadka la yimaadana dulli ayaa u dambeeya. ee haddaba walaalayaal nicmada ilaah noo galay aan garanno, dad alla uga shukriya aan noqonno. soo walaalayaal kama fakartaan sida ilaahay noogu nicmeeyey, islaamnimada uu alla na siiyey, nusuus aan dadka kala qaadan sida ilaah qaadashadeeda meela nooga waafajiyey, annagoo kala durugsan sida ilaah noo walaaleeyey, annagoo meel kale fo ka kala nimid sida ilaah noo kulmiyey, annagoon dadka iska aqoon sida ilaah isu kaanyo baray, annagoo aada u kala fogeyn sida ilaah isugu kaanyo xiray, annagoon isjeclayn sida ilaah isu kaanyo jeclaysiiyey, annagoon calol hooyo ka soo wada bixin saan isugu hooyo u noqonay, annagoon isdaryadayn jirin saan hadda isu xariirino. nicmo alla sow ma ahan dad nicmadaa garta oo u sacayaya, shukrigeeda haddaanan noqonayn walaalayaal aanu kala soconno yaanan isisirine oonan isku dambaabine. rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim, waidaa araada allahu biqowmin suu'a falaa maradda lah wamaa lahum min duunihi min waal. allah subxaanahu wa tacaala wax qoon ku sugan oo nicmo ah inta ka qaato musiibo uguma bedelo ilaa ay naftooda khayrka ku sugan ka beddelayaan. dhibkana lagama qaado ilaa ay alla u tooba keenayaan. dad haddii ilaahay xumaan la doono meel ay xumaanta ka aadaan malaha iyo meel ay uga faka karaan. alla sukadiisa wax makhluuqa u gargaara uma sugna. walaalayaal aan alla gargaaro weydiisano, diinta alle aan u shaqayno, dulliga aan ku jirnana aan nafteenna ka dhowrno. sidaas ayaa la doonayaa. haddaba walaalayaal macsiyadu waxay qofka ku ridaa rucbi iyo argagax. qofku hadduu dembi galana waxau ka baxaa ammaanada, waxuu aada uga baqdaa mar kastaba ciriiri badan. axadkii alla ka baqa alla shay walbuu ka aamin geliyaa. qofkan alla ka baqana asagaa shay walba ka baqa. walaalayaal arrintu sidaa weeye. haddaba rabbiyaan weydiisanaynaa inuu dulliga naga dhowro. allow noo gargaar oo rabbow xaqa nagu galladayso
asmaa'daada sifaadkaaga iyo kelimaadkaaga taamka ayaan allow kugu barinay. allow qalbigaa naga engegay, qalbiga noo koy, carabkaa naga xumaadee allow dikriga noo waafaji, xibnihii baa xaqa ka jeestay allow xaaraanta nooga